إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة العزاء weli waxaan ugu jirnaa muxaadaradii aan uga hadlaynay iftiiminta axkaamta ku saabsan soonka waxayna noqonaysaa mubaaxaatu siyaami wa makruuhaatuhu qofka sooman wax u bannaan iyo qofka sooman wax loo kahdo waxaa bannaan qubayskiina dib uu u dhigo qofkii janaabada qabay ama haweenaydii dhiiga uu ka go'ay markii waaga baray kadib qofka junubka waxaa loo bannaynayaa inuu dib u dhiga qubayskiisii oo janaabada uu ka qubaysanayay ilaa waaga uu ka baryo caaishati ummu salama radiallahu tacaala canhuma waxay yidhaahdeen nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa soo gaari jiray waaga waagaa ku bari jiray asoo janaabo ehelkiisa ka qaba kadibna waa qubayso jiray waana soomi jiray xadiiskana bukhaari muslim ayaa soo saaray taa macnaheed waxa weeyaan adiga oo janaabo qabo haddii uu waaga kugu baryo soonkaadii ma burayo waxna kama hadlaysno waa qubaysanaysaa waa dukanaysaa soonkaadina waa kuu saxiix sidoo kale haweenaydii dhiiga uu ka go'ay marka ay dhaar noqoto qubayska dib bay u dhigin kartaa waxaan looga qiyaasanaya bay culimadu leeyihiin qofkii janaabada qabay waana si isku raacsan yihiin ee madaahibta fiqiga ee afarta ah waxaa u bannaan qofka sooman luqluqashada iyo sandaarsiga asoon ku xildhiraanaynin waxaa loo banneeyaa oo loo ogol yahay qofka sooman inuu luqluqdo sandaarsado waxaase shardi a inuusan ku xeel dheeraanin ahlucilmina arrinta way isku raacsan yihiin waxaa kaloo qofka sooman loo banneeyaa inuu qubaysto ama biyo madaxiisa ku shuba kuleel haayo daraaddiis hadduu qofka kuleel daran uu haayo waxaa u bannaan in madaxa biyo iskaga shubo ama ahayn uu qubaystaba wax arrintaas diidayana ma jirto waana arrin ay isku raacsan yihiin madaahibta fiqiga ee afarta ah qaar saxaabada ka mid ah waxay yidhaahdeen laqad ra'aytu rasuula allahi sal alla ly slam bilcarji yasubu calaa ra'sihi ilmaa wahuwa saa'imu min alcadashi aw min alxarri waxaan arkay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ee meesha carji liraa joogo madaxiisa biyo ku shubaya asiga oo sooman oon haya daraaddeed ama kuleel haya darteed qofka hadduu kuleel qabto ama haraad daran ou qabtaayo waxaa u banaan inuu isqabuujiyo oo biyo isku shubo waqti kastaba xadiiska waa saxiix abi daawuud ayaa soo saaray imaam albani xadiiska saxiix buu ka dhigay waxaa loo banneeyaa qofka sooman inuu dhedhamiyo raashiin waa markuu rabo inuu ogaado raashiinka inay cusbada ku badan tahay ku yar tahay bislaaday xaalkiisi meesha u maraya waxaase shardi ah afka waxa uu geloo dhedhamiyey inaysan dhuunta u gudbin ee iska soo tufo sheikhulislaam ibnu taymiya raxmatullahi caleyhi wuxuu yidhi dawqu dacaami raashiinka dhedhamintiisii yukrahu waxaa loo kahdaa biqayri xaajatin dan la-aan laakinahu hase laa yafdiruhu ma afurinayo yacnii soonka maka buraya weyaan haddii raashiinka u dhedhamiya asoo xitaa dan aan u lahayn soonka maka buraya laakiin ma fiicna weeyaan waa sida ay qabaan buu yidhi jumhuuru ahlilcilmi ahlucilmiga siday u badanyihi weeyaan amaa xaaje hadday jirta buu yidhi fa huwa kalmadmadati luqashad buu la mid yahay marka jumhuurulculamaa waxay leeyihiin waa xanafiyada iyo shaaficida iyo xanaabilade haddii qofka raashiinka u dhedhamiyey gudaha uusan u gudbin dhedhaminta u dhamiya dhib ma keenayso soonkiisu waa ka buri la dhihi maayo oo arrinta waa u bannaan tahay waxaa kaloo loo banneeyaa qofka sooman haweenadiis inuu dhunkoodo ama uu maaragtay la mucaamaloodo waxaas shardi ah naftiisa inuu ka adag yahay qofka sooman markuu haweenadiis la mucaamalo ama dhunkoonaya ama uu taabanaya waxaa shardi ah naftiisa inuu ka adag yahay ummulmu'miniina caaishata radiallahu tacala canha waradaha waxay tidhi kaana rasuulullahi sal alla ly slam yuqabilu wahuwa saa'imun wa yubaashiru wahuwa saa'imun nabiga calayhi salatu wasalaam haweenkiisa ayuu dhunkoon jiray asiga oo sooman waana mubaasharoo jiray asiga oo sooman walaakinahu amlakakum liirbihi wuu ishaaran kara wuu isceli karay wuuna iska adkaabay tidhi haddii marka dareenkaadii aad celin kartid haweeneyda in la mucaamalato wax dhibaato ay leedahay malaan waxaase fiican in layska ilaaliyo laga digtoonaado weliba dhalinyarta waan arki doonaaye inay ka digtoonaadaan caaisha naftirkeeda waxay leedahay kaana rasuulullahi sal ly slam yuqabilunii wahuwa saa'imun wa ana saa'imun nabiga oo idhukoo jiray bay tidhi aniga oo sooman iyo asiga oo sooman xadiiska waa saxiixo waxaa soo saaray abi daawuud imaam albani xadiis saxiix buu ka dhigay jaabir bin cabdillahi radi tacala canhu ardaa wuxuu leeyahay cumar bin khadaaba wuxuu yidhi xoogaa yar waxaan dareemi buuyi rabitaan markaasaan xaaskayga aan dhunkooday buu yidhi rasuulku buu la hadlo wuxuu yidhi yaa rasuula allah sanactu lyawma amran cadiima maanta arrin weyn baan sameeyey xaaskayga baan dhunkooday aniga oo sooman nabigana wuxuu ugu jawaabuu yidhi haddaad biyo kula luqato oo biyina iska tufto adiga oo sooman xaalkaada muxuu noqonayaa oo soonka miyuu kaa burayaa
markaas waxaan ku yiri la ba'sa bihi dib ma laha markaasi biyaad kullu luqatay oo iska tuftay wax mushkilo ay leedahay ma lahan markaasuna wuxuu yiri ma hadaba su'aash weydiinay oo ah haweeneyda adoo dhunkooday adoo waxba ka imaanin waxa u banaa marka qofkii Soomaa haweeneydiis inuu dhunkoodo ama la baashaalo ama la mucaamaloodo waa hadii uu iska adag yahay weeyaan waxa kale loo banay ama sunnaba u ah qofka Soomaa inuu isticmaalo rumayga ama cadayga inuu isticmaalo fuqahaadu waxay isku raacsan yihiin qofka Soomaa inuu isticmaalo sawaaga in ay banaan tahay arintan waxay u dilaysanayaan ahadiis buurinaysa ama tilmaamaya in ay sunna tahay in mar walba la cadaysto mu'miniina Aisha radhiyallahu anha waxay tiri rasuulullah Muhammad alayhi salatu wasallam wuxuu yiri as-siwaaku madharatun lil fammi mardatun lir rabbi cadayga afka wuu nadiifiyaa rabbina wuu raali garaya qofka markuu cadayso afkiisi urki iyo wixii saarna nadiif bay ka noqonayaan rabbina wuu raali gareenayo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu jecel yahay gaar ahaan markuu weyse qaadanaya ama markuu salaad dukanaya ama markuu quraan akhrinayaba inuu rumaysan ilaahay uu jecel yahay subhanahu wa ta'ala afkiisa la carfaaya xadiisku waa xadiis saxiix oo imaam Nasaa'i soo saaray imaam Albani xadiiska saxiix buu ka dhigay hasaatay Shaafi'ida Xanaabiladana mashhuurka ka madhabkooda waxa weeyaan qofka Sooman inuusan cadi isticmaalin hadii duhurka la gaaro waxay leeyihiin Shaafi'ida sidoo kale mashhuurka madhab Xanaabila duhurka hadii la gaaro qofka Sooman waxa uu wanaagsan cadi inuusan isticmaalin waxay leeyihiin waxa fiican urka ama qolofta saaran afka inay yaani maragtay ku baaqi haata afkiisa qofka wasaqda ama taleebta afka ka saaran alaagtiisu waxay ka caraf badan tahay wax ka soo carfay culman kale waxay yiraahdeen way banaan tahay cadi in la isticmaalo waqti kaas oo la joogo duhurka hore ahaado ama duhur kadib ha ahaadee waxaana arinkaasi qaba Abu Hanifa iyo Malik baa qaba waana riwaaya lagu wariyay Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu waradahu Sheikh Salam Tiimina oo doortay Ibn Qayyim al-Jawzi Imam Shawkani Ibn Baz Sheikh al-Albani Ibn Uthaymin iyo culman kale ay doorteen rahimahumullah jami'an mas'ala waxa weeyaan cadiga ma la isticmaali karaa waxaad garanaysaan Imam Nawawi rahmatullahi alayhi wuxuu kamid yahay madhabka Shaafi'iga culimada u khidmaysay waliba culimada ugu horeyso ugu sareyso buu kamid yahay markuu ka hadlayay Shaafi'ida inay ka hadeen doorka markii la gaaray kadib inuu qofkii soona oo cadaysa ay wuxuu yiri taa dilil looma haayo yani dilil looma haayo bal mustahab waxa markasta oo la wasa qaadana ama la dukan la cadayso waxaynu ognahay nabi Muhammad alayhi salatu wasalam cadayga inuu ka dhigi tagay waajib yani cadayga inuu farad ka dhigo wada damcay markaas oo dhaafay asoo ummad u naxariisanay cadayga inuu farad ka dhigo nabi wuxuu yiri alayhi salatu wasalam haddaan ka baqaynin ummadeena dib ku noqon lahayd waxaan fari lahaa in cadeysaan markaas oo dukanayaan riwaayad kan waxay leedahay markaas oo weysa qaadanayaan markaas oo la weysa qaadanaya ama markaas oo la dukanaya in la cadeysaa waa sunna duhur baa la dukanaya oo zawalka ka dambeeya casr baa la dukanaya oo zawalka ka dambeeya waa la weysa qaadanaya markaas oo la weysa qaadanaya ama markaas oo yani marka la dukanaya in la cadeysaa sunna oo cadiga jeebka kugu jiro oo aad cadeysato taas waxay tusinaysaa marka mar walba in la cadeyso inay banaan tahay mas'alada waxa arkaysaa Soomaalida inta badan in isku nacaan hebel duhurka baad ayuu cadeysanayay ama hebel duhurka baad ma cadeyso wax noocaas in la isleeyahay dhici karto arin wanaagsan ma ahan mas'ala cadiga waxa raacsan mas'ala ma u banaan tahay qofka Sooman inuu isticmaalo baashan macjuun asnaanka loo yaqaan yani baashan ilka lagu rumaystay qofki inuu isticmaalo maalin Ramadaan dhexdeeda ma u banaan tahay waxay leeyihiin culimadu waxa u banaan qofka Sooman inuu furshaad yani inuu isticmaalo burushka iyo macna tahay baashan iyo kareemka ama macjuunka oo ilkaha lagu nadiifiyo ama la mariyo waxa haboon bay yiraahdeen inuu ka digtoonaado wax kamid daawadii ama wuxuu marsanay afka inay gudaha u gudbaan hadii gudaha u gudbaan soonka baa ka buriyo Soomahan ilaan waa qof wax cunay oo la mid noqonayay waxaana fiican bay yiraahdeen maalinta Ramadaanka qofku inuusan sameeynin macjuun asnaan ama balka ilkaha lagu cadeysay in maalinta Ramadaanka aadan isticmaalin waxa fiican habeenkii sameey maalinta faraha ka qaad si aan soonkaada murun u galinba arinta waxa fududey Sheikh Ibn Baz iyo Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhima Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi wuxuu yiri isticmaalu al-macjuun lis-saa'im la ba'sa bihi idha lam yanzil ila ma'idatihi qofka inuu isticmaalo macjuunka ama baashan ilkaha lagu nadiifiyo inuu isticmaalo wax dib ay leedahay malahan waa haduusan gudihiisa ama midciisa uusan gudbinin ولكن الأولى عدم استعماله وحاسب في عن إنه استعماله سببته waxaa dhici karto daawadii aad isticmaashay in gudaha u dhacdo taasina ay soonkaada ibu geysato baashaas waxa fiican dadka isticmaalay salaad subaxda ka hor ama markay afuraan kadib in isticmaalaan waxa hubaal dhadhanka baashaasi in gudaha u gudbayo mar haddii dhadhanka gudaha laga dhameeyana waxay tusinaysaa inay gudubtay arintana soonka dhibaato u geysan kartaa waxaan ka hadlaynaa qaybtii labaad oo ahayd makruuhaatu siyaami soonka waxyaabaha la kahdo waxa jira waxyaabo soonka la kahdo ay qofka Soomaaliyeed iska ilaaliyo la doonayo waxyaabaha soonka la kahdo waxa kamid
in lagu fogaado luqashada iyo sandaarsiga. Luqashada waxa weeyaan biyaha afka lagu wareejinayo weeyaan oo daaminka lagu kuusay oo qofka afkiisa dhexdiisa ka dhawaaq yeerayo. Istinshaaqana waxa weeyaan biyaha oo neefta lagu jiidayo oo ilaa sanka la gaarsiinayo. Imaam Nawawi rahmatullahi alayhi mas'ala markuu ka hadlay wuxuu yiri al-mubalaghatu fil madmadati wal istinshaqi ku fogaashaha lagu fogaado luqashada iyo sandaarsiga qofka aan soonan waa bila khilaaf sunnah bay u tahay. qofka inuu ku xeel dheeraado ama uu si fiican u luqdo ama si fiican u sandaarsado haduusan sooneen khilaaf kama jirbuul arinta inay sunnah tahay. Amma lis-saa'imi fal mubalaghatu fihima makruhatun qofka sooman inuu sandaarsiga ama luqashada ku xeel dheeraadayo waa loo kahdaa buuri. arinta waxa tusinay xadiiskii Laqid ibn Sabirata ana Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam qaal rasuulka Ilaahay wuxuu yiri idha tawadda'ta fa asbiq al-wudu'a hadad waysa qaanaysa waysada kaamiliyal oo si fiican waysa qaado wa khallil bayna al-asabi'i faraha dhaxdooda gilay faraha lugaha iyo kuwa gacmaha biyo wayna dhaxgilisaa wa baligh fil istinshaqi sandarsina ku xil dheerow illa an takuna saa'ima ina soomanta mooyaan sandarsina ku xil dheerow ina soomantahay mooyaan xadiisku waa sahih Abi Daawud iyo Tirmidhi soo saaray Imam Al-Albani sahih buu ka dhigay xadiiska asaga waxa kale la kahada al-wisalu fi as-sawmi soonka ila xiriiri soonka oo la isku xira marka aan ka soo hadlayni soonka la kahado ay arintan ka soo hadalno macnaheedu waxa weeyaan qofkii maanta soona caawin oo waxba cunin biri uu ku daro oo habeen daba leen gaara uu yiraahdo arintaasina wax wanaagsan ma ahan waxa kale oo makruuh oo la kahada qofka sooman inuu dhadhamiyo raashin hadduu dan u haynin yani har waxaan u soo sheegnay qofka haddii uu raashin inuu dhimiyo oo u baahdo sida madaahibta afarta isku raacsiyihiin inay u banaan tahay hadduusan u baahneen inuu raashin dhimiyo ma ahan yani raashinka dhimintiisa dan aad ka leedahay ma jirto hadduu qofka dan ka leh raashin dhimintiisa arintaas iyada waa loo kahdaa waxa kale oo soonka la kahdaa qofka haweenaysa inuu dhunkoodo ama la mubaasharoodo hadduu dareenkiisa ka cayo hadduu qofka dareenkiisa isbedelayo haweenka uu dhunkoodo oo la mubaasharoodo arin wanaagsan ma ahan waxa dhici karto haweenaysa inuu la kulmo oo soonkiisa fasahaado arinta marka kafaara ay ka laazimto dhibaato ay ma karto marka arinta inuu iska ilaaliyo baa la doonaya waana si isku raacsan yihiin madaahibta fiqiga afarta ah weeyaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warada wuxuu yiri anna rajulan sa'ala nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiy ilaahi wuxuu weydiiyay anil mubasharati lis-sa'imi qofka sooman ee xaaskiisa la mucaamaloonaya farakhasa lahu nabiga u fasahay nin baa nabiga u yimid alayhi salatu wasallam ka waran buuri anigoo sooman xaaskiga ma la mubaasharo karaho ma farciyaari karnaa nabiga alayhi salatu wasallam haa buuri xaaska in la mubaasharoto way ku banaantahay mid kale haddana u yimid isla su'aashi buu weydiiyay nabigu uu ka reebay laba nin baa hal su'aal nabiga weydiinaya nin wuxuu weydiiyay anigoo sooman xaaskeedii ma dhunkoon karaa oo ma la mucaamalo karaa haa buuri way ku banaantahay ninkan isla su'aashiisu weydiiyay ma ku banaana buuri waxaan fiirinay buuri midka oo u fasaxay inuu xaaskiisa la mubaasharoodo waa nin oday ah buuri waa nin oday oo dareenkiisa dhedhel uusan ku kacaynin midka uu ka reebay inuu haweenayda la mubaasharoodana waa mid dhalinyaro ah oo ay dhici karto dareenkiisa si degdeg inuu ku kaco oo uu sameeyo waxyaabo xaraan ah xadiiska xadiis saxiix oo Abi Daawud ayaa soo saaray Imam Al-Albani wuxuu yiri xasan saxiix waa xadiis xasan oo saxiix buu yiri halka waxa laga garanaa walaalayaal qofkii dhalinyarada ahaa in haweenayda la mubaasharoodo waa loo diiday oo laga reebay sababtoo ah waxa dhici karta khatar in arintaas ku galo qofkii weynaa ee odayga ahaanana waa loo fasaxay sababtoo inta badan dareenkiisa saa uma degdegay baa leeyahay odayga oo halis kuma ahan soonkiisa inuu buro hada wa billahi tawfiiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh